kulanti wacan daawaday soo dhawow janalka aad daawanayso waa All Banaadir wararka aan maanta idin haynana waxa qayb ka ah amar culus oo la duldhigay shacabka magaalada Beedhabo taliyaha cusub ee Africom oo la kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya taliska xooga dalka oo ka hadlay weerar lagu qaaday degmada Awdegle gudoomiyaha golaha shacabka oo kulamo ka wada dalka Koonfur Afrika taliska booliska beledweyne oo ka cabanaya gaadiid la'aan shakhsiyaad lagu eedeeyay inay xabsiga ka sii deyn rabeen Cabdi Maxamuud Cumar oo xabsiga loo taxabay qodobada dibadda waxaad ku daawan doontaan Uganda oo bilowday diiwaangelinta dadka isticmaala baraha bulshada wasiirka arrimaha dibadda Iran oo wali ka xaniban baraha bulshada intaasi waxay ahaayeen wararkii maanta waana 8 bisha 8 2019 maalin khamiis ah daawade haddii aad ku cusub tahay channelkan rukumo oo subscribe leh si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba markana aan u sii gudagalno qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan amar culus ayaa la duldhigay dadka ku nool magaalada Beedhabo shir jaraa'id oo ay magaalada Beedhabo ku qabteen wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka Koonfur Galbeed Mukhtaar Maxamed Guuleed iyo gudoomiye ku-xigeenka magaalada Beedhabo Aadan Carab ayaa sheegay in wasaaraddu ay amar ku soo rogtay shacabka ku nool magaalada Beedhabo inta lagu guda jiro maalmaha Ciidul Adha wasiirka xanaanada xoolaha maamulka Koonfur Galbeed Mukhtaar Maxamed Guuleed ayaa sheegay in magaalada Beedhabo aan lagu qali karin xoolo aan soo marin baaritaan caafimaad ee wasaaradda si loo ilaaliyo caafimaad qabka dadka ku nool magaaladan gudoomiye ku-xigeenka magaalada Beedhabo ayaa sheegay isna in sida uu yahay ay u fulin doonaan amarka ka soo baxay wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka Koonfur Galbeed shacabkana looga baahan yahay in ay la shaqeeyaan maamulka magaalada ugu dambeyntii Mukhtaar Maxamed Guuleed wasiirka xanaanada xoolaha Koonfur Galbeed ayaa shaaciyay in talaabo laga qaadi doono cidii aan qaadan amarka taliska xooga ayaa ka hadlay weerar lagu qaaday degmada Awdegle ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kumaandooska ah ayaa la sheegay inay ka hortageen weeraro xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab xalay ay ku qaadeen degmada Awdegle ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo maalin ka hor ay la wareegeen ciidamada danab saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ku sugan Awdegle ayaa soona u sheegay in ay dileen 4 ka tirsan Al-Shabaab halka 5 kalena laga dhaawacay kuwaas oo isku dayay in ay weerar soo qaadaan balse la fashiliyay oo ay ka hortageen ciidanka kumaandooska Soomaaliya dhawaan ay ahayd markii ciidanka xooga dalka ay la wareegeen degmada Awdegle iyo nawaaxigeeda waxaana halkaasi ka socda baaritaano ammaanka lagu sugayo sidoo kale waxa ay ciidamadu qabsadeen deegaamo kale oo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab waxaana gobolka Shabeellada Hoose ka socda howlgallo ay ciidamada dawladda ku doonayaan inay kula wareegaan deegaamo hor leh gudoomiyaha golaha shacabka oo kulamo ka wada dalka Koonfur Afrika gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu gaaray magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika halka oo ay ku soo dhaweeyeen madaxda safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool safiirka Soomaaliya ee Koonfur Afrika ayaa sheegay in gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ay si weyn u soo dhaweeyeen waxaan aad ugu faraxsanahay mudane gudoomiye inaad magaaladan Cape Town timaado Soomaali badan ayaana ku nool oo ganacsato ku ah waxa sida yiri safiirka Soomaaliya ee Koonfur Afrika gudoomiyaha golaha shacabka ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi ku sugan isagoo oo kala hadli doona arrimo badan oo quseeya horumarka Soomaaliya waxa uu dalkaasi Koonfur Afrika kaga qayb galay gudoomiyaha shirka baarlamaanada Afrika ee dalkaasi ka dhacay ka oo lagu hadlayay arrimo badan oo ay ka mid tahay qaxootiga taliska booliska beledweyne ayaa ka cabanaya gaadiid la'aan taliyaha booliska magaalada beledweyne ayaa saxafiyiinta kula hadlay saldhigga magaalada waxa uuna sheegay oo daha ka qaaday in ay haysato baahi dhinaca gaadiidka waxa ayna baaq u direen dawladda federaalka Soomaaliya isagoo uu ka hadlayay dhinaca ammaanka ayuu sheegay in dhibaatada ugu badan ay la kulmaan marka ay dhacayaan arrimo lid ku ah ammaanka kolka uu tilmaamay in aysan haysan gaadiid ay ku soo qabtaan dadka dambiilayaasha ah ee falalka sameeyay taliyaha booliska ee magaalada beledweyne ayaa tilmaamay in maamulka Hirshabeelle iyo kan gobolka Hiiraanba ay hore u ballan qaadeen inay gaadiid siin doonaan taliska booliska ee magaalada beledweyne si nabadgelyada deegaanka wax looga qabto gaadiid la'aanta ka jirta magaalada ay isagu amarku ku bixiyay waa in la dedejiyo soo gadistooda ama keenistooda sababtoo ah waxa jira marka loo fiiriyo jaanisyo ma haysano gaadiidka booliska dhamaantiis waa wada fadhiya cilada kala duwanna waa ay haystaan waxa sida yiri taliyaha ciidanka booliska ee magaalada beledweyne taliyaha ayaa sidoo kale codsaday in 72 saacadood gudahood falcelin ay kaga helaan maamulka gobolka Hiiraan
shakhsiyaad ayaa lagu eedeeyay in xabsiga ay kasii deyn rabeen cabdi maxamuud cumar oo xabsiga loo taxaabay. madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida cabdi maxamuud cumar ayaa loo haystaa falal kala duwan oo ka dhacay deegaanka Soomaalida oo ay ka mid yihiin dilal, jirdil, barakicin, goobo ganacsi iyo kaniisado lagu gubay dacwado la xiriira. haddaba wargeyska The Reporter oo ka soo baxa magaalada Addis Ababa oo soo xigtay ilo xogaal ah ayaa qoray in la qabtay shakhsiyaad damacsanaa inay cabdi maxamuud cumar xabsiga ka sii daayaan. ragga la qabtay ayaa la sheegay inay damacsanaayeen in qorshahoodu fuliyaan 5 bisha Agoosto oo ku beegneed Isniintii la soo dhaafay. sida lagu sheegay wargeyska waxa ay doonayeen shakhsiyaadkan marka maxkamadda laga soo celiyo inay fuliyaan falkooda. afaafka hore ee xabsigu uu cabdi maxamuud cumar ku xiran yahay ee Qaaliti ayaa shakhsiyaadka ay gaari soo dhigteen. askarta taraafikada ayaa ka dalbaday inay meesha ka dhaqaaqaan. ragga gaariga watayna waa ay ka diideen amarka askarta taraafikada. ciidamada oo gaariga ka shakiyay oo damcay inay baaraan waxa ay sheegeen in kooxda baabuurka wadatay ay askarta rasaas isdhaafsadeen. dhowr ka mid ah dadkii howlgalkaasi qaybta ka ahaa inkastoo ay baxsadeen haddana waxa ay ciidamadu gacanta ku dhigeen intooda badan oo ay haween ku jirto. xilliga arrintan ay dhaceysay cabdi maxamuud cumar waxa uu ku maqnaa maxkamadda oo dacwadiisa la geeyay. halka aad naga daawanaysaan waa janalka All Banaadir. wararka maanta ayaan ku guda jirnaa. markana haddii aan eegno taliyaha cusub ee Africom ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. shalay waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray taliyaha cusub ee ciidamada Mareykanka ee Afrika General Stephen Townsend isagoo oo kulamo la qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo safiirka Mareykanka Soomaaliya u fadhiya Ambassador Donald Yamamoto iyo saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya. war-saxaafadeed Africom ka soo baxay ayaa looga hadlay booqashada taliyaha cusub waxaana lagu sheegay in booqashada General Stephen ay tahay fursad lagu qiimeynayo sida ay tahay xaaladda Soomaaliya iyadoo la xoojinayo sida Africom uga go'an tahay danta amniga ee dalalka gobolka. waa ay naga go'an tahay inaan wada shaqeyno isla markaana iskaashigeena xoojino Soomaaliya iyo xulafada kale. waxaan culays joogto ah saari doonaa ururada xagjiriinta ah. waxaana culayskeena uu abuurayaa horumar siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba ayuu yiri General Stephen. sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dadaalada Mareykanka ee Soomaaliya ku tacalluqaan talaabooyin diblomaasiyadeed oo ah dhinaca horumarka iyo gaashaandhigga iyo sida uu Mareykanka Soomaaliya uga caawin lahaa dhinac walba. ugu dambeyntii war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab aysan lahayn awood ay ku weerari karaan Mareykanka laakiin haddii ay fursad u helaan ay weerari lahaayeen. waxaana in badan oo war-saxaafadeedka ah looga hadlay arrimo badan oo ku saabsan shaqooyinka horyaala taliyaha cusub ee ciidanka Mareykanka Afrika. waa tahay waxaad naga daawanaysaan janalka All Banaadir. markana qodobada dibadda ee warkeena maanta. wasiirka arrimaha dibadda dalka Iiraan ayaa xanibaad ka saaran tahay barahiisa bulshada hal toddobaad kadib markii uu Mareykanka cunqabateyn saaray wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jawaad Sariif. arrintaa oo laga yaabo in Sariif uu waayo xisaabaadkiisa warbaahinta bulshada ayaa dowladda Mareykanka iyo shirkadaha tiknoolajiyadda labaduba ay ka aamusan yihiin. maamulka Trump ayaa cunqabateeyay Sariif 31 bishii July iyadoo oo Mareykanku uu sabab uga dhigay inuu u adeego hogaamiye sare oo Iiraan ah Ayatollah Ali Khamenei. inuu u adeego hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei kaas oo isagana ay dowladda Mareykanku cunqabateyn saartay iyadoo oo Iiraan cadaadis daran saaraysa. akoonka Twitter-ka ee Jawaad Sariif ayaa waxaa ku xiran 1.2 milyan oo qof halka 729,000 ay ku xiran yihiin akoonkiisa Instagram-ka ka oo ay leedahay shirkadda Facebook. Jawaad Sariif ayaa weli adeegsada labada baroodba ilaa markii cunqabateynta la saaray dhamaadkii July. idaacadda VOA ee laanta afka Farisiga ee Iiraan la hadasha ayaa xiriir la sameysay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyadoo wax ka weydiisay xanibaadda Sariif ee baraha bulshada. afayeen u hadlay wasaaradda ayaa sheegay in Twitter-ka iyo Instagram-ka ay yihiin shirkado gaar loo leeyahay. dowladda Uganda waxaa xanibaad ku sameynaysa ama diiwaan gelinaysa dadka isticmaala baraha bulshada. hay-adaha dawliga ah ee dalka Uganda ayaa bilaabay inay diiwaan geliyaan dadka isticmaala baraha bulshada. tallaabadaasi ayaa lagu sheegay mid ay dowladda ku doonayso inay ku hor istaagto xorriyadda hadalka. xafiiska isgaarsiinta dowladda Uganda ayaa sheegay in dadka ama shirkadaha waxyaabaha baraha bulshada ku tabiyaan ama macaashka ka hela wixii hadda ka dambeeya ay dowladda uga baahanayaan warqad ruqso ah.
qaar ka mid ah dadka baraha bulshada aadka u isticmaala ayaa hadalka kasoo yeeray xukuumadda Kampala walwal ka muujiyay iyadoo horey ee dowladda u bilowday dadka isticmaala baraha bulshada dakhligooda inay canshuur ka qaado. kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa tilaabada dowladda Uganda ku tilmaamay dowladda in baraha bulshada ay u aragto mid khatar ku ah ayna ku doonayso inay ku xakamayso. isticmaalka baraha bulshada ayaa aad ugu badan dalka Uganda iyadoo oo dadka badi ay u isticmaalaan hab ganacsi ah la iskuna dhaafsado waxyaabaha lagu iibiyo online-ka. madaxweyne Yoweri Museveni ayaa loo arkaa inuu yahay kalitalis inta badanna aan ogoleyn in wax ka baxsan xukunkiisa ay dalka ka dhacaan, waxaana dhawaan soo ifbaxay hogaamiye mucaarad oo fanaan ah oo baraha bulshada ku haysta dhalinyaro aad u fara badan kuwa oo ku taageeraya in uu isbedel ka sameeyo dalka. tanina waxaa laga yaabaa inay caqabad ku noqoto xorriyadda hadalka iyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada ay sameyn lahaayeen dadka isbeddeldoonka ka ah dalka Uganda. markana wararkii ugu dambeeyay ee Kashmir waa gobolka ee Pakistan iyo Hindiya dhowr mar ku dagaalameen. dibadbaxyo ayaa ruuxay gobolka Kashmir oo ay maamusho dowladda India. dibadbaxyadan ayaa ka bilowday gudaha gobolka Kashmir qaybta ay Hindiya maamusho inkastoo uu gobolka bandow saaran yahay. 2 maalin ka hor ayay dowladda India ku dhawaaqday inay ka noqotay maqaamkii gaarka ahaa ee Jammu iyo Kashmir, waxaana tallaabadaasi si aad ah uga soo horjeestay shacab badan. fiid walba qaybo ka mid ah magaalada waxaa isugu yimaada dibadbaxayaal tuuraya dhagaxaan isla markaana ku qaylinaya halku dhigyo ka dhan ah India. xooga ammaanka ayaa xabado ku ridayay si ay u kala yaaciyaan dibadbaxayaasha, waxaana jira warar sheegaya in isku dhacyada noocan oo kale ah ay sidoo kale ka dhacayaan koonfurta Kashmir. 100,000 oo ciidamo dheeraad ah ayaa lagu biiriyay iyadoo awalba Kashmir ay ahayd mid ka mid ah meelaha ugu militariga badan ay joogaan dunida. wado walba waxaa taagan ciidan hubeysan. dadka halkaasi degan ayay baqdin la soo gudboonaatay iyadoo mid ka mid ah dadkaasi uu sheegay in aqoonsigiisa laga qaaday. isniintii dowladda India ayaa soo saartay go'aan ay kaligeed gaartay oo ay maqaamka gaarka ah kala laabatay Kashmir. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wararka maanta. mar kale fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan rukumo oo subscribe leh, dabadeedna taabo calaamada gambaleelka ah si aad u hesho xog iyo macluumaad ku saabsan wararka gudaha iyo dibaddaba. intaan mar kale isku maqli doono waad ku mahadsantahay daawashada videogan.